السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم وريالك شعبك يوتيوب كان وانا عبد القادر حسن أضولي كلن كلا oo xisal isarag wanaagsan meel walba aad joogtaan hadii aad doonaysid inaad wadankii ku noqotid oo wadankan Jarmalka shaqilkaaga diiday ama aadan bas ahaan barabin wadankan Jarmalka inaad ku noolaatid oo aad doonaysid inaad wadankii aad ku noqotid haddaba sidee ayaad wadankii ugu noqon kartaa si sharci ah oo nidaamsan isla markaana adiga laftirkaaga waxa lagu siin karaa oo lacag aad ku heli kartaa taas oo hadii aad wadankii tagtid laftirkeeda aad wax ku qabsan kartid hadii ay tahay markii ugu horeysay ee bartan walaalka shacabka YouTube aad soo booqatid waxaan ka codsanayaa inaad subscribe iyo taabateed marka ugu horeysa waad ku maasantihiin la socodka barnaamijyada iyo muuqaalada halkan aan ku soo gudbiyo bartida walaalka shacabka YouTube si aan cilmi u kala faa'iidno mar walba waxaan waqti galiyaa inaan halka idinku soo gudbiyo muuqaalo xiiso leh oo aad jeclaan doonto haddaba maanta waxaan idin wadaa hadii wadankan Jarmalka shaqilkaaga diiday oo lagu yiri sharci ma siinayno naga noqo ama wadankaaga aad haddaba sidee ayaad wadankan uga tagi kartaa muhiim ma ahan inaad adiga laftirkaaga qarash aad iskalisid oo aad raadisid qaab kale aad wadankaaga uga tagtid si fudud dawladda wadanka Jarmalka ayaa kugu celinaysa wadankaaga ku geynaysa iyadoo markaas حتى قرش كوسينيسا سي مركا ودنك أتكتد أدولا قصتي هذا هو القدان وفي صومالي وحنا أي كصوب حدي أو إسكالة بانف بونس أمت فور ميغريشن فلوشين ووزارة قابل سن أرمها قحوتية هذا بقى صومالي أي قرن وقوة خندونا جوي دقن قضاو هذه أدوني ست إن أدو ودنك هوي كلابتي ولقا عاوين waxaa kaloo laga bixinayaa qarashka ku baxaya safarkaaga sidoo kale waxaa laga caawin doonaa dib ula qabsashada wadankaaga hooyo warbixintan wax saameyn ah kuma yeelan doonto go'aankaagii magangeliya doonka ahaa ee wadanka Jarmalka ku joogta laabashada ikhtiyaarkaaga waa laabashada ikhtiyaarkaaga macnaha ikhtiyaarkaaga inaad u laabatid maxaa dhacaya hadii aad magangeliyada la diido waxaa lagu ogeysiinayaa in codsigaaga magangeliyada la diiday oo waxaa lagu siinayaa dhamaadka waqtigaaga ee ah inaad uga tagtid wadankan dhamaadka waqtigaaga sida caadiga ah waa 30 maalmood hadii codsigaaga magangeliyada loo diido ahaanshaha u muuqata sabab la'aanta dhamaadka waqtigaaga waa 1 isbuuc hadii aad uga tagi weydid wadankan ikhtiyaarkaaga si xoog ah ayaa lagu saari karaa oo lagu celin karaa wadankii aad ka timid dib u celin waa inaad bixisaa nafsadaada qarashka dib u celintaada oo lagu ogolaanayo in aad gashid Jarmalka ama wadan kale oo EU ah waa sida uu qoran yahay wadan kale oo EU ah dhowr sano xanibaad kelitaankaaga ma joogi kartid Jarmalka adiga oo aanan haysan waraaqada socdaalka waxaa ku xiri kara booliska xilli walba oo aad dib kugu celin karo wadankaaga dooro inaad uga laabatid si ikhtiyaarkaaga ah oo caawinaad lagu siinayo maamulka Jarmalka waa dooro ikhtiyaarkaaga inaad dib ugu noqotid iyadoo caawinaad uu ku siinayo Jarmalka hadii aadan haysan lacag aad uga tagaysid wadanka waxaad caawinaad codsan kartaa dhinaca barnaamijka dib u celinta RAAG GARB RAAG/GARB waxay u taagan yihiin barnaamijka isdhexgalka iyo socdaalka ee magangeliyo doonka barnaamijka dib u celinta dawladda Jarmalka caawinta dhaqaalaha waxay kugu caawinaysaa inaad dib ugu safartid wadankaaga hooyo nafsadaada iyo si taxaddar ah lagu diyaarinayo dib u laabashadaada bixitaankaaga waa la diyaarinayaa iyo qarashkii safarka waa la daboolayaa taageerada dhaqaalaha dheeraadka ah sidoo kale waa la helayaa tusaale ahaan qaabka magangelinta ama deeqaha caawinaad dheeraad ah ee kuwa ikhtiyaarka ugu laabanaya ee wadamada la doortay si ay uga suurto geliso
inay bilaabaan bilow cusub halkaas. tusaale ahaan caawinta iyo shaqo helidda ama gurigeynta dooqyada kala duwan waxaa looga hadli karaa kulanka dib u celinta gaarka ah. mar walba oo la fadhiisto waxaad rabtaa sheegi kartaa. waa sii wada. isticmaal talada bilaashka ah ee halkan lagugu bixinayo ee ku saabsan wadanka ku laabashadaada. haddii aad doonaysid inaad si ikhtiyaar ah ugu laabatid wadankaaga, waxaa weydiin kartaa la taliyaasha dib u celinta halkaasi su-aalo walba ee aad qabtid oo qarsoodi ahaan ah. la taliyaashaada dib u celinta waxay kugu caawinayaan inay ku diyaariyaan bixitaankaaga. ay ku dalbaan maalgelinta RAAG ama GARB iyo caawinaad walba oo dheeraad ah oo la heli karo dadka sida ikhtiyaarka ah ugu laabanaya wadankooda. haddii aadan lahayn waraaqadaha safarka oo saxan, waxaa sidoo kale lagugu caawinayaa helitaanka bedelidda warqadahaaga baasaboorka. tarjumaad ayaana la isticmaali karaa inta lagu jiro kulanka la talinta si loo hubiyo inaad fahansan tahay wax walba. waxaa sidoo kale la imaan kartaa qof xarunta la talinta dib u celinta oo adiga ku fasiraya ama ku tarjumaya. waxaa sidoo kale talo ka raadin kartaa la taliyaasha dib u celinta adigoo codsanaya magangelyada laga baaran degay. tani ma saameynayso go-aanka ugu dambeeya ee magangelyadaada. laabashada ikhtiyaarkaaga ah sidoo kale waa suurtagal haddii nidaamka magangelyada aanan weli la dhammaystirin. xaaladda waa inaad joojisaa codsigaaga magangelyada ka hor inta aadan ka tegin wadanka. kadib markaad joojisid codsigaaga, warqadahaaga safarka ayaa waxaa soo diraya xafiiska federaalka ee socdaalka iyo qaxootiga BAMF, usoo diyaarinaya xafiiska diiwaangelinta ajaanibta ee mas-uulka ka ah. xafiiska ku siinaya ruqsadda deganaanshaha ku meelgaarka ah oo halkaas ayaana lagaaga qaadi karaa. waxaa kaloo heli kartaa xarunta la talinta dib u celinta halkaasi ee ciwaanka xiga. haddii aad leedahay gelitaanka internetka, waxaa ka heli kartaa warbixin dheeraad ah ee ku saabsan laabashada ikhtiyaarkaaga www.returning-from-germany.de/an/BAMF. haddaba qof walba oo celis doonaya, qolooyinkan way caawinayaan. sidoo kale magacyadooda iyo linkiyadooda ayaan qaybta hoose ee commentiga ayaan soo dhigayaa. qofka wuu ka raadin karaa, wuuna la xiriiri karaa, wuuna ka codsan karaa. marka maanta wixii ka dambeeya, haddii aad doonaysa inaad wadankaaga hooyo ku noqotid, si fudud ayaa lagugu celin karaa, isla markaana qarash kugu filan ayaa lagu siinayaa si markii wadankii hooyo aad tagtid aad xoogaa business ama waxay noqotaba aad ku samaysatid. insha Allah khayr ayaa idin rajeynaya dhammaantiin. muuqaalka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya. intaan muuqaalka kula kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. subscribe-ka iyo commentiga iyo like-ka ha hilmaaminina.